Ma dareentay weligaa in cimrigaaga si tartiib ah ugu sii banaayo gacmahaaga adigoo aan waxba qaban? Ma u fiirsatay naftaada oo aad isweydiisay goorma ayaan sidaan noqday? Qof daalan, jahawareersan, niyad jabsan, aan go'aan lahayn. Runtii isbeddelkan uma imaanin si kedis ah, balse wuxuu ka yimaaday qalab yar oo ku jira jeebkaaga, moobilka gacanta oo noqday sidii qayb gacantaada ka mid ah oo kuugu heliya mar walba. Fiidiyowga maanta uguma hadlayno inuu yahay moobilka gacanta sidii qalab xun, balse sida isticmaalka khaldan uu noloshaada u burburinayo adigoon dareemin ayaan uga hadlaynaa. Waxaa jira 5 dhibaato oo qarsoon oo si tartiib ah ugaga imaanaya taleefankaaga, laga yaabee in ay kaa xadaan waxa ugu qaalisan ee aad leedahay. Number 1, khamriga shaashadda iyo luminta waqtiga. Maalin kasta waxaad tiraahdaa 5 daqiiqo oo keliya, balse saacado ayaa dhaafa adigoo ka dhex boodaya app ilaa app, muuqaal ilaa muuqaal, ilaa aad ku seexato iftiinka buluuga ah. Laakiin xaqiiqdu waa murugo. Saacadahaas waxay kaa xadaan cimrigaaga dhabta ah, mustaqbalkaaga, caafimaadkaaga, cibaadadaada iyo xiriiradaada. Taleefanku keliya ma xado waqtigaaga, balse wuu kaa xadaa dareenka waqtiga, wuxuuna kugu abuuraa fikrad been ah oo ah inaad weli waqti leedahay, adigoo dhab ahaantii khasaaraya. Number 2, burburinta xiriirada bulshada. Hore markii aan dadkeena la fiirsanayno, waan wada hadli jirnay, qosol iyo kalgacal baan dareemi jirnay. Maantase qof walba wuxuu ku jiraa dunidiisa yar ee shaashadda. Moobilku ayaa noqday saaxiibkii iyo wehelkii, xitaa markaad dhex joogto dadka aad jeceshahay. Waxaa intaa ka sii daran, dad badan ayaa bilaabay inay ka cararaan xiriirka dhabta ah, ayna u arkaan fariin qoraal ah mid fudud. Marka loo eego la kulanka tooska ah, taleefanku wuu soo dhaweeyay masaafooyinka, laakiin wuxuu kala jaray qalbiyada dadka. Number 3, burburinta feejignaanta iyo wax soo saarka. Miyaad isku dayday inaad wax barto, shaqo qabato, ama buug akhrido, dabadeedna si lama filaan ah digniin ayaa soo dhacda, xiise kala wareeg ayaa dhacday, kadibna waqtigii oo dhammaaday. Taleefanku wuxuu kaa qaadaa mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn, diiradda saaridda. Qofka lumiya feejignaanta wuxuu lumiyaa awoodda wax dhisidda, waxbarashada, hal-abuurka iyo xitaa fikirka. Dhammaan akhyaarta ku cusub channelka subscribe saara, biidhnillah waa mahadsantiin.